wuxuu dib ugu soo laabtay gurigiisa oo ka maqan muddo 2 sano ah, laakiin lama filaan wuxuu ku arko hooyadiisa oo qaadaysa dhagaxaan weyn kuna qaadaysa dhabarkeeda. Intaas u soo dhawaan maamada ayaa waxay ku leedahay askari waxaa rabaa inaan wax badan ku tuso. Orda wuxuu nagalaa mas'uul meesha ka dhaweyd isla markii waxa goobta soo gaaray naagta asaga uu qabay oo lagu tagay inuu hooyadiisa daryeesho. Waxayna bilaabaysaa inay maamada aad u sii aflagaadeyso ayadoo dhehayso weli shaqada lagu dirma aad qabanin maxaa la taagan tahay boosii. asaga markuu arrintaa la arkay aad ayuu u niyad jabay wuxuu meesha ka filayay maan wax ka dan ayaa dhacay wuxuu bilaabay inuu meesha ka soo baxo wuxuuna arkay hooyadiisa ortayda sii qaado birihii alaabta meesha taala wax soo gaaraya wuxuuna ku leeyahay iska hooy fardan waxa ma qaad doonti isla markii waxa guriga soo galay mid asiga uu qabay iyo mid kale ay saaxiibiin oo la socdo waxay waysaa maamada waxay ku leedahay soo bax muujeed miya inaanay saaxiibkeena ay maanay waa inaan sidii u dhaqsiyo badi loo diyaarsaa raashin aan anaga midkaan wax buu dhacay kala socdo guriga ayuu ku dhuumaysanaya mana rabo inuu aragto ilaa wax buu ka ogaado waxay fadhiisanayaan miiska qadada ayuu meesha ku sheekaysanaya maamada u keenaysa qadada laakiin asaga ilaa hadda ma rabo inuu wax baxreeyo wuxuu rabaa arrinta ilaa intaan ka daraysay gaarayso inuu kala socdo laakiin ayada markii aragtay in maamada hilib saxan u saaran yahay waxay bilowday inay si kama fiirsat la'aan ugu qaado hilibka inuu ku tiraaday qof daa ayaa tahay inka ka badan macuni kartid hilib waxayna soo qabanaysaa yaan iyo coos waxayna ku leedahay waa in ayadan iyo cooskan cunto adiga ma lagu talagelay hilib cunto sidii xoolihii kale waa in cooskan iyo ayadan aad cunto ayay ku leedahay laakiin asaga wuu qaado weyna wax meesha ka socdo wuxuuna tijaabinaa ayada inuu waco si uu wareysto xaalka hooyadiisa maadaama asaga wax buu dhacay meesha oo ka fiirsanayo oo soo waca laakiin midkan wuxuu ku leeyahay ka qabanin maamada ay ku soo jeesanaysaa waxayna ku leedahay hadda hadalkaas ka daan neeftaada aan maqlo oo inuu qolku ugu soo xiray bal ka qabanaysaa asaga waxayna u sheegaysaa inay fiican tahay wuxuu weydiinaa xaalka hooyadiisa waxayna u sheegaysaa inay aad u fiican tahay hooyadiisa inay waqtiga baashalka ku jirto markay ka baxdo koolka waxay ku qasbaysaa inay maamada cunto cooska laakiin maamada ayada aad u cabsanayso qofta waxay qasbaysaa u hoggaansanaysaa iyo bilaabaysaa inay cooska sidii xoolihii cunto ayadana hilibkii maamada ka soo qaaday ku raaxaysanaysaa abaar kadib markii la qadeeyay maamada oo ku jirta shaqo maalmeedkeeda oo rabta inay dhagaxaanta meesha ka qaado ayuu imaanaysaa ayada soo go'tay shopping waxayna ku leedahay weli shaqada ma aad qaban miya ayuu sida muumaya isla gadaal ka imaanaya maamada milkeedii wuxuuna sheegay in wax walba meeshan ka dhacay oo la socday wuxuuna bilaabay alaabta maamada rabta inay qaado inay ayada u saaro meesha inay ka qaado shopping oo soo gatay oo ilaad lacagta maadigaas ka soo gatay iska dhig aniga ayaa lacagta iska leh wuxuuna bilaabay inuu ku qasbo inay qaado alaabtan inay rabta inay u dhiibto hooyadiisa markaas alaabtan aad u culus tahay bal dhacaysa ma qaadi karto wuxuu sheegay waxa ayada qaadiyay inay ku qasabto hooyadiisa inay qaado ayadoo aad u careysan ayada rabto in meesha ka soo tagto celinaya wuxuu ku leeyahay isku bixin waa inaan cuntaa cooskan iyo ayadan rabto in hooyadiisa siiso xanaa qadartiisa waxay bilowday inay ayadii hal gacan ku bajiso kadib ayadoo aad u careysan ay goobtaas kaga tegaysaa kadib markay goobtaas kaga tagto wiilka ayaa u soo sheegaysaa inuu iska furo muuqaalkan intaan ay ku ekaa muuqaalka loo saara